maalmaha ka mid ah waxaan dhageysanayay gabadh weydiinaysay Sheekh Umal warqad bay u soo qortay waxay tiri nin baan leeyahay laakiin jin aanan iska celin karaynin baa isticmaala oo waan dareemayaa xataa xubintayda in la isticmaalayo xataa haddaan suuqa marayo suuqu way igu qabsanaya laakiin dadku ima arkayaan sheekhu maxaan yeelayaa su'aal noocaas oo kale ayay sheekha weydiisay marka jamacii dhageysanayay su'aashu way qosleen marka sheekhu wuxuu yidhi ha qoslina waa mas'alo sharciga xidhiidh la leh haddii qofka biyo ka yimaadaan waa lagu yeelanayaa maxaan ku dhammaydhi midkan isagu iskii u doontay ama sahar ha ku doonto ama sixir ha ku doonto ama isaguba yani faduuli ha noqdo aslan in nidaamka wax lagu raadiyaa ma banaana marka horeba wadadu marayo ayaa xaaraana oo wadadaasa xaaraan ka dhigtay qaabka uu la isticmaalayo ama uu la xiriirayo oo qaayadu iyo wasiiladii labadiiba xaaraan bay noqonayaan masaladaas saasay culimadu halkaasay dhigeen kan isagu xaaraanna wuu ku dhacay maydhina waa lagu leeyahay inuu ka tooba keenana waa ku waajib xaaladda uu galay su'aal baa haddana la isweydiiyey oo odhanaysa isla qaadanay in xidhiidh gogoleed taqalaynka dhex mari karo haddaba carruuri mar ka dhex dhalan kartaa labadooda wax nasliya iyo tafiira labadoodu ma isu yeelan karaan culimadu laba qowl bay ku kala tageen barba iyagu waxay leeyihiin wax jinihiba ma jiro qaar baa odhanaya sida maxaan ku dhahaa muctasilada iyo jinka iyo nidaamkiisa iyo waxaasba qaar mucaasiriinana waxay leeyihiinba jinkan la idiin sheegaya waa bakteeriyada iyo fayraska iyo waxaas weeyaano wax jin la yidhaahba ma jiro qaar kale waxay leeyihiin jinkan la idiin sheegaya waa dabaa'ica bini'aadmiga ohoo wixii khayraada dabeecaddan qofka bini'aadmiga jeclaysiisaana waa malaa'ig wixii sharka jeclaysiiyaana waa jin marka waa sifo ku qumta bini'aadmiga dhexdiisa wax jin la yidhaahayo madax bannaan oo nooliba ma jiro laakiin waa sifo qaa'imatun fii khilaali albashar waa sifo ku dhex jirta bini'aadmiga markuu cadhoodana sifo jinniyada buu yeelanayaa markuu farxana waa sifo wuxuu yeelanaya malaa'igtii oo kale marka wax jinihiiba ma jiraan qaar baa odhanaya haddaba haddaynu tahay iska khuraafaadka iyo sacbalaadka ka nimaadno jinku waa makhluuq jira taqalayn baana la isku keen yidhaahdaa qur'aankana in badan buu ka hadlay masalada dafiraadeeduna kufri bay kula gelaysaa jimbe ma jira haddaad tidhaahdo aayaad min qur'aani alxakiim baad diidan tahay isla qaadanay jinkii inuu jiro isla qaadanay xidhiidh gogoleed inuu iman karo dariiquu doonaba ha ku yimaadee haddaba jinkan ama qofka ha qasbo ama qofku iskiiba ha u doontee wax carruuri ma dhex mari karaan jullulculamaa waxay leeyihiin maya ee isuma dhali karaan qaarna waxay leeyihiin maya ee way isu dhali karaanoo haddii awoodda jinku ay badatana la arki maayo ee wuxuu noqonayaa caalamal-jinku ku biiraya haddii awoodda insigu ay xoogaysatana wuxuu noqonayaa sifada bini'aadmigu yeelanaya waa si qadiyad naadir ah qoladaasi markaa inta badan waxay daliishanayaan gabadhii la odhan jiray balqiisa sayidina sulaymaan calayhi salaatu wasalaam ay isku zamanka ahaayeen baa waxay yidhaahdaan waxay ka dhex dhalatay bayna alinsi waaljin ayay ka dhex dhalatay oo hooyadeed baa jinniyad ahayd bay yidhaahdaan iyadoon daliil culusba loo hayn imaam maalik binu anas baa isna qowl laga wariyaa su'aal baa la weydiiyey haweentu jinka ma u uuraysan kartaa wuxuu yidhi anigu arrinkaa waan karaahiyaysanayaa sababta oo ah fitan badan baa ka dhalan kara oo waxaa dhici karta gabadhi intay sinaysato oo la yidhaahdo uurkani muxuu yahay inay tidhaahdo jin baan anigu la xidhiidha oo dabadeedna halkaas mafsado badani ay ka dhacdo qowlka noocaasa imaam maalik loo tirinaya waxba kama jiraan waa qowl aan sanadkiisu saxnayn marka siday u badan tahay ajilatulculamaa waxay leeyihiin wax taranihi ma dhex mari karto labadaa makhluuq anse intaan hawshan ku jiray dhowr iyo 20 sannadooda laba masalo ayaa igala kulmay masalo waxay ahayd
waxay ila xidhiidhay 96 meelaha anigoo Europe jooga meelahaas baa su'aal la soo weydiiyay waxa la igu yiri nimba reemiyibu ahaa waa aaga ceelfayn meelahaas baa marka ay ahayd sheekadu odayba reer buu lahaa geel badanna wuu lahaa inamadiisii markii uu sii dhimanayay buu la hadlay wuxuu ku yiri inama yahow geela iyo dhaxalka laba nin baa idin la leh labada nin waxay dhaxalku siiyo geela meel u dhiga odaygii sidii buu ku wafaaday inamadii way isu yimaadeen waxay dhan war heedhe ma xera xoolahaas ma intaynu xero ku oodna uga dhaqaaqnaa inagoon cid ba arkaynin macquul maaha war xoolaha inoo dhaxla ilaan xoolaintaynu xero ku oodno waraabo uga tagi mayno xoolaha aan dhaxlano markii habeenkii aroortii la dhaxladay ee habeenkii la seexday geeli xeradii waa laga dareeriyay neef ba looguma iman dhammaan wixii geel ahaa oo dhan dhabigaa lagu dhuftay labadii inan baa ka haystay marka su'aasha la weydiinay waxay ahayd sidee geeli loo raadin karaa taasi mas'alo horta aniga la weydiiyay bay ahayd akhuuna Sheekh Abdul Qaadir ilaahay ha caafiyo waxaan u sanayaa mas'alo isna la kulantay oo iga sheekeeyay baa jirtay inan baa waxa la itisaali jiray cifriit markay gogasheeda tagto ayuu u soo dhaadhici jiray dabadeedna xidhiidh gogoleed buu la samayn jiray inantaasi waxay sheekha u sheegtay mar kasta oo shaydaankaasi u yimaado inay isla habeenkaaba uuraysato isla aroornimadana sida dumarku u foosho ay u foolanayso oo ay xabad beeda dhasho xabad beeda inay dhasho qisadaana waxa ii sheegay akhuuna Sheekh Abdul Qaadir Xaaj Jaamac oo gabadhaas isaga la soo xidhiidhay waxaan daa caalamkun aynu arkaynaana waa anwaac wa ajnaas waxaynaan garanaynin maxaan ku dhahdaa sida yihiin marka caalam aljin haddii aynu sidaa markaa u baranay makhluuqaadkan aynu la noolahayna ay sidaa inoogu dhex jiraan waxaan qadar yar haddii alla yidhaahdaa macluumaad yaroo kooban oo intaynu iminka jinka ka sheekaynaynay waa ilaa taqriiban 4 maalmood weeye 4 fadhi macluumaad aad u badan baa ku duugan axkaam badanna way ka iman doontaa oo maalan culimadu waxay isweydiiyaan makhluuqan jinka la yidhaahdo nebi gaara baa iyaga loo diray mise ambiyadan bini aadmiga ahunbaa nebi u ahaa masaladaa culimadu way ka hadashaa yaa macshara aljinni waalinsi alam ya'tikum rusulun minkum aayaddaas culimada qaarkood waxay leeyihiin yaa macshara aljinni waalinsi alam ya'ti rusulun minkum miyaan la idiin soo dirin rusul idinka mid ah marka halkaa waxay ka daliishanayaan inuu jinkuna lahaa nebiyaal u gaara bini aadmiguna ay lahaayeen nebiyaal u gaara oo weliba ay leeyihiin sidaynu ognahay ambiyadii hore nebi moxamed mooyaane nebi kasta qowmkiisunbaa loo diri jiray nebi kasta qowmkiisa ayuunbaa loo diri jiray sidaa darteed waxaa halkaa inoogu cad inay jinkuna ay lahaayeen rusul insiguna ay lahaayeen rusul qolada kalena waxay leeyihiin markii ilaahay uu uga warramay nabigeena calayhi salaatu wasalaam jinkii jinn nasiibayn waid sarafnaa ilayka nafara min aljin waxay yidhaahdeen markay qoomkoodii ku noqdeen innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan marka waxay tilmaameen inay diintii nebi muuse ay haysteen iyada muran kama joogo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mursal athaqalayn labada caalanba inuu nebigooda ahaa iyada taas muran kama joogo laakiin waxaa dood la geliyaa
ambiyadii hore miyay u diraayeen jinka mise insigun bay gaar ku ahaayeen marka qoladan loo odhanaysa ambiyad bini aadmiga unbaa ambiyo u ahayd marka aayadda la weydiiyo la leeyahay minkum taxageed u celinaysaan waxay yidhaahdeen waxa weeyaan marka sidii nebiyullaahi moxamed ba ay ugu yimaadeen ay u dhegaysteen ayaa kuwa nebiga maqlay baa iyana rusul noqonaya oo qowmkooda gaadhsiinaya laakiin fariinta jibriil baa keenaya bini aadmigu u dhiibayaa nebiga bini aadmiga nebigaasna waxaa isna mursal ka noqonaya oo sii qaadaya fariinta oo jinka kala gaadhsiinaya kuwa nebiga yacni warka ka qaatay oo inta badan cilmiga waxay ka qaataan basharkay ka qaataan bay leeyihiin waana qowlka raajixa oo qowlkaas inaanu jinku yacni ambiyo madax bannaan lahayn laakiin ambiyada la soo diro ayay warka ka qaadi jireen jimanka kale ayay gaadhsiin jireen masala markaa isweydiin leh oo ay culimmadu iyana ka jawaabeen innaga iyo jinka kee cimri weyn kee da' weyn si basiida waxay idhaahdeen dee bini aadmigaa da'yar oo xadiidkii saxiixa ahaa oo innaga garanayna markuu ilaahay uunkan abuuray uu 6 maalmood ku abuuray wax la abuuraba waxaa ugu dambeeyey aadam oo salaadii casar dabadeed la abuuray maalin jimco ah aadan abuurkiisana waxaa ka horreeyey de shaydaankii sujuuddaba diiday isna jinka ka mid ahaa marka xagga cimri ahaan iyagaa inaga da'weyn jimanku inta ay inaga da'weyn yihiin ma qiyaasi karo wax nas ah oo inoo sheegay cumriga inaga weyn yihiin ma jiro walaa aaya walaa xadiid bacdu ulculamaa waxay leeyihiin 2000 oo sannadood iyo waxbay sheegaan 40 bay sheegaan waxbay laakiin wax nas ah oo sariix oo cad ma jiro mas'ala kale la isweydiiyaa oo ah makhluuqan aan ka hadlayno muxuu ka abuuran yahay horaan uga jawaabnayo waa inagii nidhi wuxuu ka abuuran yahay naar insaankuna wuxuu ka abuuran yahay dhoobo malaa'igtuna nuur bay ka abuuran tahay taa macnaheedu ma ahan shayaadiinta maanta caalamka inagula nool waa olol baxaya ma ahan waxaanay ku soo sawiraan had iyo jeer filimada ee dhimbiilaha ay daadinayaan iyo ololka ka boodayaana waxba kama jiraan sida bini aadmigu maanta aanu dhooba u ahayn ayaan jinkuna maanta u ahayn dabkii daliil waxa uu abay yidhaahdeen xadiidkii saxiixa ah ee nebigeenna ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam markuu jinku soo weeraray ee uu damcay inuu wejiga u dhigo dhimbiil daba waxay yidhaahdeen hadduu isagu dab yahay muxuu dabka kale uga baahnaa hadduu isagu dab yahay muu isagu gacanta saarada isagaaba ololaye hadduu isagu dab yahay markuu nebigu cunaha qabtay calayhi salaatu wasalaam ee dhareerkiisu ku soo daatay nebigu wuxuu qiray calayhi salaatu wasalaam in dhareerkiisi qabowga uu gacanta ka dareemay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan makhluuqan la yidhaha jinku abuurkii hore wakhalaqa aljaanna min maarijin min naar sifadaas markii hore laga abuuray laakiin tafiirta dambe iyagu naar ma ahan oo dab ma ahan waa makhluuq jismaaniya oo laakiin inagu aynaan arkayn innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum waxay isweydiiyaan imise qaybood buu u kala baxaa jinku imise nooc ayuu jinku u qaybsamaa xadiid saxiixa ayaa nebigeennu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam abu saclaba ayaa xadiidkaa warinaya wuxuu yidhi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam jinku waa 3 sinfi qaybi way duushaa oo hawaa'i baa laydhaa qaybina waa raaxila naasila waa reer guuraa waanay degaan waanay guuraan qaybta saddexaadna waa yani waa xayaad iyo kilaab iyo xayawaan bay iyaguna qaabka xayawaanka oo kale leeyihiin oo bisadaha oo kale way yani noqdaan waxaan ku waa caalam adigu xayawaanaad ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo kii saxaabida xadiidkii saxiixa ahayd uu kula dardaarmayay magaalada madiina makhluuq baa idinkula nool oo maxaan ku idhahdaa caalamkaas oo muslimiina waxaanay qaabka abeesooyinka iyo waxay leeyihiin masaska haddii aad aragtaan magaalada madiina aad ku aragtaan iska abhiya hadduu 3 jeer idinkaga tegi waayo
marka wasaa'il iska celiya hadduu muslim yahay se uu idinka tegaya waa xadiis saxiixa bay ahayd waxa la isweydiiyaa makhluuqan maxaanku idhaahdaa reer guuraaga ah ama kan hawaayiga ah ma yani ama kan kaleba ma samayn karaa qaabka bini aadmiga oo kale ma iska dhigi karaa tashakul baa la yidhaa tashkiil ma samayn karaa haa axaadiis iyo aayaad badan baa caddaynaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu ka warramaya dagaalkii badar waa kii isku soo shabahay suraaqa binu maalik وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وحو إسسو إكيسيي عاقل كي لأورنجر سراقة بن مالك وحكالو دعدي مركي النبي عليه الصلاة والسلام دار الندوة لوغو شرقولي وكي إسسو إكيسيي شيخ من نجد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين marka uu isu ekaysiin jiray oo karaa bina aadmu uu iska dhigi karaa awoodana ilaahay uu siiyay inuu tashkiil qaadan karo waxa isweydiin leh meelaha uu u badan yahay uu dego yani manaasisha u ah waa meelahe waxaan su'aasha la isu weydiinayaa si aynaan inaga iyo makhluuqaadkaas isugu dhicin inaad ogaato meelaha uu madaanada uu dego nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam ruuxu inuu ku kaajo meel godaho maxaan ku dhahaa bannaanada ka qodan markay culimmadu isweydiiyeen waxay dhahayn laba midun baa ka dhalanaya in makhluuq caadiyiba ku jiro ama maxay ku jiraan quraanjooyin ama nafley oo aad dhibto iyo inuu ku jiro caalam aljinba ay degaan u tahay oo dabadeedna ay isku dhacdaan marka meelaha godadka ah ee meelaha ka qodan inaanad biyo bayla ku shubin inaanad yani kaadidaadiya la doonanin waa muhiim bay kuu tahay haddii masku jiro adigoo kaajay oo kugu soo boodo nijaasowday naxday balaaya kaa raacday haddii jin ku jirana dawab isdilaysaan marka sababaha ugu badan ee innaga iyo iyagu ay isugu dhacna waxa weeye waa markaynu inagoon bisinka qabsanin biyo bayla ay daadiyaan dadku ama dhagax weyn intuu meel ka qaado meel qashin oo kale uu ku tuuro ama ruuxu uu meel qashina iska soo maro isagoon bisinka qabsanin ama suuliyaashoo kale marka la gelayo aanu bisinka qabsan bismillaah allahuma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ithi iyo wixii la mid ah marka meelaha xashiishka lagu tuuro meelaha musqulaha ah iyo meelaha bannaanada cidlada ah maxaanku idhahdaa meesha gebiyada hoostooda way hadhsadaan geedahana way hadhsadaan laakiin booskay ka fadhiistaan waxa weeyaan harka iyo qaybna harkay fadhiistaan jidhkooda qaybna waxay geliyaan harka qaybna bannaankay fadhiistaan marka nebigu way naga maanacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meesha harka ah ama cadceedda u wada bax ama harka soo wada gala waa xadiid saxiixa laakiin amaakinta jinka ha fadhiisanina oo maxay tahay amaakinta jinku waa halka kala badha ee cadceedda iyo harka qaybna jidhkiisa harku geliyaa qaybna bannaanka ayuu dhigaa waana amaakinta iyo meelaha ay u hooyadaan ama ay fadhiistaan markay haasaawayaan marka labada dhinac midun inaad wada gasho ayaa shareecadu ay ina faraysaa waxa kaloo la inoo sheegay haddii rabbiga xukunkiisa leeyahay qofka muslimkii marka uu dharka dhiganayo ama uu iska bedelayo dharka caalamka waxaa jira guryaha wax la yidhaahdo عمار البيت قلو غريها iska degto oo saanqaafyada waxa iskaga noolaata qaarkood waxa suurtagal ah hadii aanad bisinka qabsanin in cawradaada ay arkaan markay cawradaada ay arkaanna inay cawradaadaas ishooda ku tacalluqdo oo sida marka ay kugu asiibaan markasta oo aad maryo furanayso inaad bisinka qabsato marka aad suuliga galaysana inaad bisinka qabsato oo noloshaada aad mar walba ilaahay ku xidho sida markaad cuntada cunayso aad bisinka u qabsanayso markaad wax cabayso bisinka aad ugu cabayso waxa kale uu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam caalamkan saqalaynku ama jinku inuu bidixda isticmaalo sida daayeerku u gurnayay daayeer midig yani wax ku turmay aragteen ma jiro bidixdu isticmaala jinkuna bidixdu isticmaala hadduu wax cabayo bidixdu isticmaala
hadduu yani cunayana bidixda isticmaala sidaa darteed ayaa qofka muslimka waxaa laga maanacay inuu bidixda isticmaalo wuxuuna u qaybiyey rasuulku midigta iyo bidixda hawlo u qaybiyey wuxuu yidhi wax allaaliya wixii karaamo leh midigta iskale wax allaaliya wixii qaaduuraad ana bidixda iskale bidixdaad iskaga siiminaysaa bidixdaad ku istishaysanaysaa wixii xashiisha bidixdaad ku tuuraysaa bidixda ku isticmaali maysa wax khayr leh wax allaaliya wixii noloshaada ku tacalluqay laakiin la leexinayo baa bidixda lagu isticmaala marka baaraka allahu fiina wa fiikum mawduucan waa mawduucaad macluumaad badan ay ku duugan yihiin markaynu yani gudagallo xanuunadan isha iyo jinka iyo durrada iyo sidee loo daweeyaa wax badan baa inaga soo geli doona baabkan waxaan jeclahay marka macluumaadkii aynu ka qaadanaynay jinka inuu caawa halkaa inoogu joogo wixii ka dambeeya waxaan gudagelayaa baabkii kale maxaan ku dhaha cawrida iyo sixirkooyana baddhan ah marka insha allah jimcaheena dambe waxaynu ku talagelaynaa inaynu kelmado yaryar oo inagaga xidhmi doono baabka aynu tacliiqino dabadeedna aynu isha iyo wixii ku tacalluqa aynu ka hadli doono biidni illaahi albaari wasalaamu calaykum waraxmat ullah